kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogta shiine oo aan ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogaha dunida ee degal kasta. barnaamijkan warbixinada dunida waxaan ku soo gudbin doonaa waa tuma gabadha Soomaaliyeed ee labada jeer hormuudka u noqotay haweenka muslimiinta ee dunida, laba tallaabo oo labadaba ay ku sharfayso diinta Islaamka. waxaa lagu yiri kala dooro inaad noqoto qofka ugu caansan dunida iyo diintaada, waxayna dooratay diinteeda. tani waa warbixintii ugu horeysay oo laga diyaariyay Xaliime Aadan, gabar Soomaaliyeed oo iyadoo xijaaban xayeysiin jirtay dharka oo sheegtay sanadkii dhammaaday daqiiqadiisii inay ka fadhiisatay guud ahaanba xayeysiinada dharka, waxayna soo gudbinaysaa guud ahaan sheekooyin ku saabsan sababaha ku kalifay in ay ka fadhiisato xayeysiinta dharka, sida ay ku soo gashay iyo waxa ay la kulantay. Xaliime Aadan waxay ahayd gabadhii ugu horeysay ee iyadoo xijaaban samaysay xayeysiiska dharka bishii November ee sanadkii hore ayay ka baxday shaqadaas, waxayna sheegtay inaysan waafaqsanayn diinta Islaamka. waxa ay sheegtay sababta buuxda ee ku kaliftay inay isaga baxdo shaqadaas, sida ay go'aankaasi ku gaadhay. Xaliimo oo 23 sano jir ah waxay ku nooshahay xaafadda Cloud ee Minnesota, halkaas oo ah goobta ay ku soo barbaartay. waa xaafadda ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Mareykanka. markay joogto waxay ku labisataa sida caadiga ah, mana marsato waxyaabaha la isku qurxiyo. gabadhani oo ka dhooftay xiriyaha qaxoontiga ee Kakuma ee Kenya oo ah halka ay ku dhalatay, fariin ay soo dhigtay barteeda Twitterka iyo Instagramka bishii November ee sanadkii dhammaaday waxay ku sheegtay in nafteeda ay ku dhaliilayso xoog ay saartay fursadaha ay ka heshay fashionka, ayna hilmaantay waxa uu horseedi karo. Xaliimo oo ka mid ah gabdhaha ugu horeeyay ee fashionkooda ku soo bandhigay xijaabka ayaa sheegtay inay ku fogaatay waddo lunsan, mararka qaarna aysan salaada tukan jirin. dadka qaar waxay ku tilmaameen inay ahayd gabadh xijaaban oo guul ka gaadhay xayeysiiska dharka ee modelka oo lagu sawirayo bogga hore ee wargeyska Vogue oo ka warrama quruxda dharka. waxaas oo dhan waxay isaga tagtay 2 bilood ka hor kadib markii shaqadaasi ay waafaqi weyday caqiidadeedii. waraysigii ugu horeeyay ee aan si degan u bixiyo ayay tiri iyadoo qoslaysa, sababtoo ah 10 saacadood kuma qaadan si aan u xidho dharka iyo isqurxinta aanan doonayn in aan sii wato. maadaama ay xijaabka xidhanaysay, Xaliimo iyada ayaa xulin jirtay dharka ay xidhan jirtay ee bandhigyada quruxda. bilowgii waxay wadan jirtay boorso ay ka buuxaan xijaabyo, saakooyin dhaadheer iyo goonooyin. munaasabadii ugu horeysay waxay xidhatay xijaab dheer oo madow, iyada oo ay la timid olaha quruxda ee Rihanna Fenty Beauty. wadahadal kamaysan geli jirin in ay xijaab xidhato. waxay muhiim u ahayd sanadkii 2017 oo heshiis ay la saxeexday shirkadda IMG oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee xayeysiiska dharka iyo quruxda dunida. waxay heshiiska ku dartay qoraal u gaar ah oo ay ku sheegtay in IMG ay u ogolaatay in weligeed aysan bixin doonin xijaabka. wuxuu xijaabkeedu la mid ahaa dunideeda oo dhan. Xaliimo ayaa sheegtay in hooyadeed marar badan ay ka codsatay inay ka hadho mihnadaasi, waxayna tilmaantay in ugu dambeyntii ay ku guulaysatay. hooyaday waxay sabab u tahay guulaha farxadda aan gaadhay. yoolalkayga cusub ayaa ah in aan farxaddeeda ka shaqeeyo, ayay ku qortay Twitterka. waxaa jiro gabdho ku dhimanaya sidii ay u heli lahaayeen heshiis ku saabsan xayeysiiska dharka, ayay tiri, balse aniga waxaan diyaar u ahaa inaan ka tago shaqada haddii waxa aan rabo la aqbali waayo. muddo kadib iyada maysan maamulaynin dharka ay xidhanayso, waxayna ogolaatay maryo madaxa lagu xidho, kuwaas oo bilowgii haddii lay sheegi lahaa aan diidi lahaa, ayay sheegtay. ugu dambeyntii waa layga leexiyey waddadaydii, waxaana ku jahawareeray meesha aan laga gudbi karin. waxaana kooxda ay ku dadaaleen inay sameeyaan qaabka aan u xijaabanayo. sanadkii ugu dambeeyay ee xirfadeeda xijaabka ay xidhanaysay wuu sii yaraaday, mararka qaarna waxaa muuqanaysay qoorteeda iyo xabadkeeda. mararka qaarna halkii ay ka xijaaban lahayd waxaa madaxa loogu xidhi jiray maro jenis ah iyo dhar kale. Xaliimo 2019 xilligaas oo booqasho ay ku joogtay Kakuma
ayay ka hadashay sida ay isugu dheelitirto shaqadeeda xayeysiiska iyo diinta islaamka. ma jirto haweeney lagu qasbi karo inay xijaab xidhato, mana jirto haweeney lagu qasbi karo inay iska dhigto xijaabkeeda, ayay tiri. Xaliima ayaa indhaha caalamka soo jiidatay markii ay noqotay haweeneydii ugu horeysay oo iyadoo xijaaban ka soo muuqatay majalada Vogue. heshiisyada kale ee Xaliima ay gashay waxay ogolaanayeen inay hesho qol u gaar ah oo dharka ay isaga beddesho, balse waxay dib u ogaatay in dumarka kale ee xijaaban ee isku shaqada ay yihiin in aan loola dhaqmin sida iyada loo xushmaynayay. waxay aragtay qaarkood oo loo sheegay in ay musqusha isaga beddelaan dharka. taas waan la yaabay, waxaana isdhahay, oh my god, gabdhahani aniga ayay igu dayanayaan. waxaana u furay waddada geysa af libaax. Xaliima waxay noqotay gabadhii ugu horeysay ee iyadoo xijaaban ka qayb gashay tartanka gabdhaha ugu quruxda badan ee gobolka Minnesota dalka Mareykanka. tartankaas kumaysan guulaysan inay noqoto boqoradda quruxda, laakiin intii uu socday waxay baratay labiska lagu dabaasho oo jirka oo dhan asturaya una sahlaya in ay dabaalato iyadoon qaawanayn. waxaan rabay in aan soo laabto oo aan gabdhaha kale u sheego in dabaal aadi karaan iyagoo oo dharkaas xidhan si ay ciyaaraha uga qayb qaataan, ayay tiri. xilligaas waxay uun kadib waxay qandaraas la seexatay mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee dhinaca xayeysiiska oo lagu magacaabayay IMG Model. qayb ka mid ah dareenka mas'uuliyadeed iyo mid xulasho wuxuu ku yimid asalkeeda oo Soomaali ah markii qaxoontiga ay ahayd xeryaha Kaakumo ee qoyi galbeed Kenya. waxay hooyadeed ka baratay inay caawiso dadka kale. markii ay u guureen Minnesota xilligaas oo Xaliima ay 7 sano jir ahayd, waxay noqotay bulshada ballaaran ee Soomaalida ee Mareykanka. haddaba waxay dhibaato yar ka dhacday markii Xaliima noqotay boqoraddii xijaabka xidhnayd. waa abaalmarin loo hibeeyey ardayda ugu caansan iskuulka. way ogeyd in hooyadeed oo jecel in imtixaanka la baaso aysan ogaanan doonin arrintaas. hooyadeed waxay jebisay taajkii la soo siiyey, waxayna diiradda saaraysaa saaxiibo iyo qurux, ayay tiri. xitaa markii masraxa weyn ee caalamka ay ka soo muuqatay, hooyadeed waxay sheegaysay inay xirato xijaab wanaagsan. sanadkii 2018 Xaliima waxay noqotay safiirka UNICEF maadaama markii ay yarayd ay ku nooleed xerada qaxoontiga. waxay shaqadeeda ahayd xuquuqda carruurta. hooyaday weligeed ima aysan arki jirin sida qof xijaaban oo dharka xayeysiiya oo keliya. waxay ii arkaysay sida rajada ee gabdho badan, waxayna markasta i xasuusinaysay in aan noqdo qof ay ku daydaan. Xaliima waxay doonaysay inay samayso wacyigelin ku saabsan carruurta barakaca ah iyo in ay carruurta u muujiso marba haddii iyada ay ka soo baxday nolosha qaxoontinimo in iyaga ay ka bixi karaan. UNICEF Mareykanka waxa ay u sheegtay, waxaan ku faraxsanahay wada shaqaynta Xaliimo ee 3 sano iyo badh. taageeradeeda, sheekada cajiibka ah iyo dulqaadka waxay sii xoojinayaan xuquuqda cunug kasta. sharaf ayay ii ahayd UNICEF in ay Xaliima la shaqayso, waxaana rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan. waxaas oo dhani waxay caddeyn u yihiin sababta bisha November ee sanadkii 2020 u go'aansatay inay ka hadho shaqada xayeysiiska dharka iyo midda UNICEF. waxaan ku faraxsanahay fursadda uu COVID ii siiyey, waxaana dhammaanteen eegaynaa waddada xigta ee xirfadeenna. waxaana isweydiinaynaa farxaddaba ma ka helayaa. Xaliimo ayaa dhowaan dhammaystirtay soo saaridda filim ka hadlaya sheekada qaxa iyo qaxoontiga iyo colaadaha Afghanistan. filimkan oo lagu magacaabo I Am You waxaa la bilaabayaa in bisha Maarso la sii daayo Apple TV. waxaan aad ugu rajo weynahay in aan aragno haddii naloo magacaabayo abaalmarinta. sidoo kale inay ka tagtay shaqadii UNICEF macnaheedu maahan in Xaliima ay joojisay shaqadii gargaarka iyo mutadawacnimada.